السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وذا مرشد الصومالية تريد ملك استاد سوغنتين تاني الشالي تاني حالي مقالة الأسعار وحلقة سوورني ورر مدون تخدم بيا وكأرك كحبذي هاي هو يؤي المهيد ولا كلا إقداي عرور يريرو قاجونيسا وحرادان وحنونسان وبابور دقديرا انت لغو توري أيغان عانا حيسان وبيه حيسان وعنتا حيسان وحنونسان ايه ودر حدنين إن محلي هذا لقى إلالي ملحته تولو إني بيك عبانا وككبضان لقى إلالي هنتدو يحولوه دينا لقى قاتل السقن حقريا أنت لغو صور قراعي ليري هل كان الله إذن كربا حرنتو بوليسكو سؤالي إذن ويديني أي كون بحين ضدكي درعي معاوس يكبا محلي هذا دعسه قار كود عروره دي يجو هرده أي كتير نقولي قار كمدا oo ilaa hadda ay jiraan kuwa laga tuuray already koonfur laga tuuray oo ilmahooda yaryar ka ahaa oo ceediga ahaa kaga tagay lascaanood geeriyo nolol waxay ku sugan yihiin aan ka warqabin waxaan hayo ma jirto hantii hoolantan tan xayna waa la iga soo reebtay ciyaartan waxaan u hayo ma jirto looli aan gaari ku saartamahay sameel aan u baxay malaha gaalka ayaan jooga gaalka ayaan caawin ka sugay ilaahay baa caawin ka sugay dan iyo dibad baalaha Soomaaliyeed baa caawin ka sugay haye markaaga hore xagee ka timid markii hore lascaanood baan ka yimid qaabkee gaalkacyo lagu keenay waxaan u keenay soo raabtay aniga aan joogo ka adeeganay ciyaalkeygana guriga ku xirnaayeen waxaan igu ciyaali waxaad u noqonaysaa ma jirto bartaa ma banigu goormay ahayd markaa habeen hore cishaa markii la tukanayo waa la soo kaxeeyay habeen hore waxaan jecladnaa ilaa shalay 12 banaanka boqorada lagu dishay shalay markay labada duurnimo heeda nala soo qaaday carruurtaadii meeday carruurtay saddex baa iga maqan toddobana waan sitaa qabaar baa iga daba keenay iskana baan waxaan dhahay anaa baad kaxaysanaysaa hantideeda xooleygaa haysataa ciyaalkeygii baan u baahanahay ciyaalkeyga iga kaxaynina waxa kalena iskahay kuwa waxaa la sheegaya guryo qolo lagu soo qufulay oo aan cid ka warqabta aysan jirin xataa dadka reer lascaanood aysan warka haynin guryo lagu soo xidhaa la sheegaya kuwa jidka naftiina uga baxdo waxay ruug sigtaa la sheegaya oo biyo caano markii laga ilaaliyo oo tuulo walba laga ilaaliyo ilmo yar oo shalay cunto ugu dambeysay oo 24 saac garoonka cabdi bil lagu hayay markii dambe gaari dushii lagu tuuray gobolka Laascaanood saaka tan igu qabsatay hadeerna nolol naf ku jirto gaari saaran ma aha waxa iigu wanaagsanaa inaan saaka maslaxa Laascaanood ku geeriyooday leeyahay wiilad ayaa ii dhaantay nolosha Laascaanood saaka la igu qabtay weligay Soomaalina kama dhicin xoolaha hataa waa la qiimo loo yeela nunuma oran wariyaa wadanka laga saaray bir ama saadanba maryahaaga meero ilmahaaga sahay u sameeysaa taleemo oran haday islaamnimo ay jirto islaamnimo ay ku dhaqmayaan war kuwan inay wax u eegan baahan ee kuwaasaan waday kuwaas saaki ilaahay baan kugu dhaariyay tan isaaka afka halkan ba hadda buskut ugu sii magaalada Burtula markaan soo gaaray ayaa wallahi buskutki ugu horeeyay hadda halkan lagu sii isaaqadoodii maanta 12 saas ka dhigeen waxa iga sii daran kubi xalay 5 saxaabinimo ay guriga lagala baxay ay meel ay la tageen kuwaas iga sii daran kulli dhibaato maanta aan sameeysanay ama anagana nagu helay oo maanta naga jaasinayna ma jirto وعروض هذا كان بنتها استماع عروض بقى جمع قوايا ولا لقي عروض وضلي جبل ديسي جارجة ديجو هري سارن تاي لبده عروض عاو مالهم كشيء كرم ما جرنا يو إن يدول بنتقى حيستن إن تذكر كلا يو جرن ماي مدي Soomaaliyeed meel kasta ay joogto arinta argagax ay ku noqotay hadaba waxaan la yaabanahay dadka Laascaanood ku nool waa dad caynkaya maxaa ka khaldan war dadka reer Laascaanood ميسان داد دين أهين ميسان داد مسلم أهين ميسان داد شرد باحية كتير أهين ور ميسان صومال النمو يرو انتها ليغا ايسا كتير آذا النمدي إسلام النمدي يستي حقك آدي waxay ku leeyihiin marka la hadasho waanu isku daynayo markii garoonka cabdi bila lagu ururiyay dadka oo aan aragnay dhibaatada iyo baahida haysa cuntaan usnidu u geeyo askar baa iridan loo dhigayo inta soo guutaa ka sokayso meelan u marno waxbaan taasnada naga iskuus wax taasi idin ma noqonayso marmarsiyo ma idin noqonayso ummad dhan ayaa tihiin inaad isku soo baxdaan inaad ka xuntiin inaad muujisaan inaad suurtaa ku sameysaan dulmiga waajib ayay idinku ahayd waajibkiini haddaad gabteena wixii idinku yimaada waxa aaminsanahay waxyaabo macnaha ilaahay xaqiisa inay idinkaga dhici doonaan haddaydan idinku maanta aydan dhaqdhaqaaq sameeyeen war qofka maanta ka baqay ama la xiraa haddaan soo kici waayo dadka dulman oo dulmiga daawanaya oo dhulkiisii lagu sameeyay dadkaasi
laascaanood laga tarxiilay 20 sano iyo 30 sano ka hor bay yimaadeen caruuraha halkaas ku dhaleen halkaas ku qaangaareen kuwii ku dhashay baa qaangaaray oo ku qanacsanayay markaas waxaa la rabaa in kaaniyo Muuse bixiyo in idinka dhaadhacsiyaan maalin walba dadkiini la leeynay ee qof kasta oo wax garad iyo kii wax bartay iyo kii culimaha iyo kii ganacsadaha iyo kii haldooraha iyo kii ka dhaqaaqay magaaladaba inta irida loo istaago fiidkii markuu masaajidka ka soo baxaba dhan nin tuutasita intuu dilo xarunta booliska ugu dhow uu carariyo aad arkaysana markhaati ka wada ahaydeen oo ogtihiin ayaa waxaa la rabaa in la yiraahdo dadkan 20 sano 30 sano laascaano degana oo aan weligood dhibaato geysanin ayaa waxaa la rabaa in iyaga idinka laayay marka haddaad aamustaan oo xataa cabsidan iyo cagajugleyntaan intaad aamintaan aad gurihiina dib u gashaan waxaad ogaataan ummadda inteeda kale waxay idiin aaminayaan ama idiin aqoonsanayaan oo aan anigu xitaa ugu horeeyo inaad raalli ka tihiin dadka la dulmay inaad sidoo kale aaminteen inay iyaga yihiin waxa dadkeena leynaya iyo haldoorkeena taas inaad leedinka dhaadhacsiiyay ayaa qof walba maanta aaminaya haddaba Muuse bixi oo TPLF ay dabada ka soo dhirbaaxday oo isna ina kaahin dabada ka soo dhirbaaxay waxaad ogaataan in uu hal dhagax laba shimir u wada dilayo waxaad ogtiin waxa galmudug ka socda waxaad ogtiin waxa Soomaaliya oo khalkhalka loo gelinayo iyo tan laascaanood ka socota iyo tan koonfur ka socota inay tahay chain isku xidhan Soomaaliya oo dhan khalkhal lagu abuuro ayaa loogu talagalay dhinaca koonfurta waxa kale loogu talagalay in lagu abuuro cadaawad dadka reer koonfur galbeed iyo dadka waqooyiga ku nool cadaawad in laga dhex abuuro ah kuwan laascaanood joogan in la yiraahdo hal doorkiini waxa dilay reer koonfur galbeed oo aad soo dhawaysateen reer koonfur galbeedna waxa la rabaa in laga dhaadhacsiiyo reer laascaanood ba dadkiini soo tarxiilayo hantidiina la haray iyo caruurtii qayb ka mid ah taas ayaa la rabaa in horta kow la isku muujiyo waana halkaas waana labada maxaliyada halka dhagax ee labada shimbir ku dilayo in bixi oo ay u soo degtay qisadan TPLF filinkan ay TPLF soo degtay in bixi waxa weeyaan in la yiraahdo dadka koonfur galbeed cadaawada ay qaadayaan maxay tahay dadkiini hantidoodii ayaa laga soo cayrsaday laga soo tarxiilay kuwan jooga laascaanoodna waxa la rabaa in lagu fulo dadkiini dhowr iyo 10 sano la soo dhaafay 300 oo raga ka badan baa la idinka dilayay waxa idinka laayay dadka koonfur galbeed idinka yimid soo dhawaysateen taa hadii marka filinka TPLF idinka dhan la idinku qoflo horta waa inta la idinka rabay ogaada Soomaaliya sheekada hadda galmudug ka socota iyo tan laascaanoodna waa laba isku xidhan iyaga laftirkoodu oo la isla rabay ama la isla eeganayay waxa rabaa marka dadka laascaanood ay dhahaya waana la xidhaya oo waana la dilaya oo askar baa meel walba noo taagan oo guriyihii laga guray dadka askar baa ilaalinaysa oo ifan hadii hantida dadkaasi uu Muuse bixi gaari ku uruursado oo gurigiisa loogu geeyo mar walba waxaad ogaataan ummadii lahayd hantidaas iyo ummadda Soomaaliyeed inay aaminayso inaad idinku tiin tuugada guranaysa hantida dadkaas waayo shibbaatihiin meel dambi lagu galayo dadkii joogay oo deegaankii lahaa oo sheeganaya oo soo taagtaagan oo ka hadlaynin daadmiis idinka raali ka ah idinkaana cunay idinka ayaana rabay dulmiga dadka lagu sameeyo oo raali dadka tihiin marka leedihiin waana la xidhaya warma magaalo inta leego iska dhan oo dhowr boqol oo kun oo qof ay ku nool yihiin baa xirayaro ina kaahan idin ooda idin deeqdaa idin ma deeqdo ma isku soo wada baxdaan hadda damiir leedihiin oo nooshiin oo naf idin ku jirto ma ka dhiididaan laba qof oo meel isugu yimi ilaa hadda ma hayo qof iyo labo hal shakhsi waa ku ka hadlaya telefoon waa ka xamaa laascaanood waxa ka dhacay waa ka xamaa maxay waxa soo kaleeto wax garadkii dadkii garaadadii culimadii ganacsatadii dadkii magaalada u ka kacay mi iyo magaaladana iskaga soo baxdaan bay ahay dadka hortiina lagu dulmay hadaad raali ka noqoto hal magaalo ayaa waxa loo rogi jiray afar qof oo dulmi ka geysanaya markii malaa'iktu loo soo diray oo roga ay waxay yiraahdeen ilaahay oo dad cibaadeysanaya magaalada jooga وكسر لي هدي عبادة سنة يا رو إلهي كرني يعني حيد المجوب وجهرتي جواعي هذا دول مجي كهرتي وإذا مركا وحنا كبقى يلا تعامل ندول كل لقوي أمرك حنك كأي صوت على طول وايد تصورنا ولا يدين دول مي داون يسين ما أنت ردت كي كلاتو أي لبعض عاود كتاج الله عنا بيدك لوجي يسنيو أيضا أرحم يتشحنش يدقق منك السوبنين ومن سبحان الله وحلود القارن كرنا معها
wax loo dul qaadan karana maaha haddaydan rabin in cirka samada la idinkaga soo daadiyo dhagxaan ama magaalada yar dhulka lala gooyo ilaahay haddaad taqaaniin arrinta ka kaca oo ka dhiidhiya oo maanta ka sameeya tacadiga loo geysanayo dadka walaalihiina ee reer koonfur galbeed hantidoodii sidii dib uga heli lahaayeen hooyada iyo ilmaha kala maqan siday dib isugu heli lahaayeen xoolahoodii siday dib uga heli lahaayeen laakiin haddaad halkaa ka daawataan oo tiraadaan muuse urursaday muuse cidina ma weydiinayso adduunkan Soomaaliya ma weydiinayso magaalada waa Laascaanood garanaysaa waa magaaladiinii it's not muuse magaaladiisii ina ka ahayn magaaladiisii maaha ana I believe magaalo kale oo waqooyi haddii maanta tani ka dhici lahayd bulshada ku nool sida reer Laascaanood u daawanayaan waa isan daawadeen war maxaa damiirkii idinka qaaday war maxaa idinka siya war maxaa idinka qaldan